toddobadan dal hala burburiyo oo hilfaha loo qaado muddo 5 sano gudahooda. sidaas waxaa dhahayo muuqaalku idin fasaxi doonaa General Wesley Clark, General Mareykan ah. toddobadan dal Iraq, Syria, Lubnaan, Liibiya, Suudaan, Soomaaliya waxaa loogu dambaysiinayaa Iiraan. sharaxadan oo dambayso marka hore generaalka oo arrinkan ka shifayo. This is a memo that describes how we're going to take out 7 countries in 5 years, starting with Iraq and then Syria, Lebanon, Libya, Somalia, Sudan, and finishing off Iran. Wait. I said, toddobadaas dal ay maqlayseen generaalka ay ka maqlayseen horta xaalkooda aan ka sheekeyno. Iraq aan ku bilowno. Iraq xalkeeda waa ka warhaysaa. waa dal maanta aan israacsaneen oo dhinac walba ka burbursan waay. Syria kaba sii daranba. Fiiriya hadalka generaalka uu sheegayay waxay ahayd Qadaafi oo nool, Saddam Hussein oo nool, adduunka dadkan dalalkan oo amni ah oo dhisan oo hawsha u kala socoto, laakiin meel idinka aadan ka fiiri jirnaa maanta ka fiirinayna. Iraq halkeeda waa kaasa. Syria halkeeda waa kaasa. waa ku days. Lubnaan ku soo hartay. Lubnaan waa dal yar. maanta Israa'iil waxay ka haysataa meel 20 kilomitir ah ayay ka haysataa. dalka dhinac waxaa ka haysto Hezbollah qolo ay dhahaan dhinac ka haysto. laba marka u qaybisid qayb yar oo maamul goboleed ka sii yar amni ah ayaa la dhihi karaa, laakiin intiisa badan bilay hadda la soo dhaafay wuu burburay sidii Israa'iil duulaanka uga qaaday oo Hezbollah burbursanaysa u tiri. Lubnaan ayadana waa ku days. yaa ku soo haray waxa ku soo haray Suudaan ma halkeeda kaaga sheekeyna ayadana waa ku days. waa ku days. Suudaan maanta meel amni ah ma ah. waa ogeedeen dagaalkii hadda bilay hadda ka socday lagu baabay idinka waa ogeedeen. Soomaaliya dalkeena hooyo xalkiisa waa ka warhaysaan. isma heysano dagaal dhinac walba nooga socdo. caasimada kaliya aan nabad ah hadal ma ah. horta dadka madaxda saas dhoo kula balbooda. caasimada kaliya ma ahan dalka waa dalka duusan wada nabad ahayn. caasimada nabad afkaada inaan ka maqlo ma rabaan. dalka nabadee sidaas awgeed dalkeeni asagana wuu burbursan yahay. taas hadaa diido doqon ataa marka. okay na soo celi hadartaan. intaanoo dal maxay CIA-da u rabtay inay burburto. taleefkan hadda iga daawanaysid aqli isticmaali ah. taleefkan iga daawanaysid kaamiru leeyahay. habeen walba oo isku sawirtaa, maalin walba oo isku sawirtaa, muuqaal ka qaadaa. weliba kaamirada fiiriya. kaamirada sanadba sanad ka dambeys waa sii casriyeeyaa. iPhone taleefano casri ah oo fiican oo kaamiradooda casri ay tahay la soo saaraa sanad walba. iPhone 15, iPhone 16, iPhone wuu sii socdaa. ma og tahay iPhone-adan ugu badan waxaa soo saaro qolada loo yaqaan Apple-ka Mareykanka. sanadkii 2000 markii barnaamijkii alqaacida iyo burbursashada iyo Mareykan oo Ciraaq iyo Afghanistan ku duulay markay bilowday, waxaa kaloo garab socday oo bilowday isbedel xagga teknolojiyada dunida bilowday. waxaana koow ka ahay kaamirada casriga ah ee taleefanada wax loo yaqaan smartphones. taleefanada kaamirada leh adduunka ku cusbaayeen 2006 ugu horeysay dadka shacabka ay gataan. markaas lagu wada hootay, laakiin shirkad gadaal ka sharxi doona ikaad adiga. okay taleefanada casriga ah waxaa ku xigay laptopyada ayagana yaryarka oo la qaato oo ayagana kaamira leh. sidoo kale kuwan MacBook iyo xasaga leh MacBook iyo dadka isticmaalo laptopyada oo Mac ah ay fahmi karo waa teknolojiyad casri ah wax walba ku sameyn kartaa. waxaa kaloo isla markii soo ifbaxay waa intuu Mareykan ugu mashquulinay Afghanistan iyo Iraq wax la dhaho Facebook iyo Twitter iyo teknolojiyada hal mar dilacday. Wi-Fi wax la dhaho soo baxay. cryptocurrency wax la dhaho soo baxay. idinka wuu soo baxaydaas kaliya ma ahan see ku soo baxeen isweydiiseen. shidaalka carabta iyo kheyraad dhulalkan lagala soo baxay waaye waxa lagu process gareeyo oo lagu sameeyo. tusaale ahaan hadeertaan tusaale yar doqsiyo taleefanka kaamiradiisa waxay u baahan tahay shidaal aad u far badan. qolofka laptopka qolofkan yar ee laptopka saaran shidaal u baahan. shidaal la'aan wax soconaya mala. baabuurtan gawaarida sheegaga arkaysiin oo goomaha ah shidaal u baahan yihiin. kulli waxaa lagu process gareeyaa oil iyo gas iyo waxaas loo baahan. Mareykan dalkiisa wuu soo saaraa shidaal, laakiin tirada taleefanada la soo saaro, tirada satellite-da la diro, tirada gawaarida la sameeyo, adduunkan dhan inuu qabsado teknolojiyad iyo ganacsi dhaqaale wax walba uu ku qabsado xitaa lacagta la soo saaray shidaal u baahan. markaas carabtii
barnaamij argagixisaa lagu gambaday dhulkooda iska dhuuqa waxaa tusaale yar kaaga filan 93 markuu maraykanka joogay soomaaliya SSC qaatuma kasoo bilaabo ilaa magaalada muqdisho ceelal shidaal oo kuwa maraykan ay ku habsadeen ay jirto ilaa dirtaan maabkii u horyaalo intaas waxaa kaaga sii daran ciidamadii imaaday waxbaa lala baxay waxbaa la baxeen iiraan dan hadda dagaalka ku jirto waagii maxkamadaha sheekh shariif uu joogay waxbay nagala baxeen heshiisay gaareen qori aaka iyo dabajaxi waxbay magaalada keeneen iyagana waxbay nagala baxeen warkan kusoo koobaa intaas waa sheekada dhanba